kulankan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya uu kula yeeshay madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geyle Xaaf safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayay uga hadleen arrimo dhowr ah labada dhinac kulankoodu waxay ku qaadadhigeen arrimo aad u xasaasi ah oo la xiriira Soomaaliya iyo Galmudug si fiican way iskaga afgarteen madaxweyne Xaaf oo toddobaadkan safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ku howlan kulamo kala duwan oo uu leeyahay wakiilada beesha caalamka ee Nairobi ku sugan isagoo sharaxaya in dawladda dhexe ay siyaasadaysay mashaariicdii horumarineed ee Galmudug ee caalamku ugu talagalay in lagu horumariyo deegaanada Galmudug ayuu madaxweyne Xaaf waxa uu kulamadan ku sheegay isla markaana beesha caalamka uga hadlay in Galmudug waxeeda aan la gacan bidixayn isla markaana si toos ah Galmudug loo siiyo shalay galinkii dambe ayay ahayd markii kulan guul ku soo idlaaday uu la yeeshay safiirka dawladda UK u qaabilsan Soomaaliya dhanka kale madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ku sugan iyagana magaalada Nairobi ayaa kulamo gaar ah la qaatay wakiilada beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya kulamada oo isugu jira kuwa guud iyo mid gaar ah ayaa waxay madaxda maamul goboleedyadu kala hadleen arrimo kala duwan oo la xiriira taageerada beesha caalamka siyaasadda iyo khilaafka xilligan ka dhex taagan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo hakad galay isla markaana wada shaqayntii labada dhinac ay joogsatay muddo dhowr ah ila wareedyo muhiim ah oo ku sugan Nairobi ayaa Galmudug TV u xaqiijiyay in madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ay kala hadleen wakiilada beesha caalamka laba qodob oo kala ah in macaamiil gaar ah lala yeesho maamul goboleedyada halkii taageerada loo soo marsiin lahaa dawladda federaalka iyo in la sameeyo road map doorasho maadaama ay sheegeen in aysan xukuumaddu wali diyaarin nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa 2022 waxa kale oo madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan Nairobi u cadeeyeen wakiilada beesha caalamka inaysan helin casuumaad kulankii la iclaamiyay ee dhici lahaa 19 Abriil ee bishan aynu ku guda jirno kaasi oo ahaa shirka amniga qaranka waxayna tilmaameen in ujeedada ay ahayd in ra'iisul wasaare Khayre oo shir Washington uga qayb gali lahaa oo beesha caalamka ku qanciyo inuu wanaagsan yahay xiriirka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dawladda federaalka ayaa laga sugayaa inay ugu dambeyn bisha June soo bandhigto hanaanka doorasho ee dalku galayo 2022 iyadoo la sheegayo in dawladdu ay qorsheynayso muddo kororsi waa sida ay qabaan khubarada dhanka siyaasadda isku soo wada duubo kulamada Nairobi madaxda maamul goboleedyadu ay beesha caalamka kula leeyihiin iyo wada shaqayn la'aanta kala dhaxaysa dawladda dhexe markii loo fiiriyo dawladdu waxay u muuqataa mid ku fashilantay wada shaqayntii looga baahnaa ee maamul goboleedyada ee xubinta ka ah dawladda dhexe